wararka laga helayo gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal culus oo ku bilowday qaraxyo uu dib uga qaraxay deegaano ka tirsan gobolkaasi kaas oo u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada macawisleyda ee deegaanka iyo dagaalyahanada ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida ay sheegayaan wararka hordhaca dagaalka ayaa ku bilowday qaraxyo waxaana xigay iskahorimaad xoogan oo la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan dadka deegaanka ayaa sheegay in jugta madaafiicda iyo rasaasta culus laga maqlayo goobaha lagu dagaalamayo iyadoona dagaalku haatan uu wali socdo muddo saacado ah ila deegaanka ayaa sheegay in dagaalku uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoona maleeshiyaadkii weerarka soo qaaray halkaasi jab culus ay ku gaarsiiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale kuwa deegaanka muddooyinkii la soo dhaafay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa go'doon geliyay maleeshiyaad tiro kooban oo Al-Shabaab ka tirsanaa oo deegaanka Soomaaliya ku sugan iyadoona halkaasi maleeshiyaad kale oo banaanka jooga ay doonayaan in halkaasi maleeshiyaadka lagu gudoomiyay ay soo furtaan iyadoona weerar culus ay saaka ku soo qaadeen balse waxa ay la kulmeen iska caawin aad u xoogan ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka kuwaas oo si weyn uga hortagay weerarka argixisada Al-Shabaab ay ku soo qaaday halkaasi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay Al-Shabaab ay gaarsiiyeen jab culus isla markaana ay kooxda ugu carartay goobaha dagaalka iyadoona halkaasi uga tagtay meedadii sidoo kale dhaawacyo sidoo kalena halkaasi ay ku qabsadeen gabaari dhowr ah dowladda ayaa sidoo kale ciidamadu sheegtay in ay wali wadaan bacsiga dagaalyahanadii dib ugu gurtay furimaha dagaalka gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah furimaha ugu muhiimsan ee ka socdaan howlgallada ka dhanka kooxda argixisada Al-Shabaab tan iyo 2022 ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaa dhowr jeer dib u wareegeen deegaano iyo sidoo kale goobo muhiim ah oo ay kooxda hore ugu maamuli jirtay bilihii u dambeeyay waxaa gobolka socday dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo howlgallo isdaba joog ah oo lagu bartilmaameedsanayo fariisimaha kooxda argixisada Al-Shabaab saraakiisha ciidamada ayaa hore u sheegay in howlgalkan ama howlgalladan ay qayb ka yihiin qorshaha lagu sugayo amniga deegaanada laga saaray Al-Shabaab iyo dib u furista wadooyinka muhiimka ah ee isku xira gobolada dhexe ee dalka Al-Shabaab ayaana waxay haatan ay noqdeen kuwa si dabar go'aya iyadoona deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka ay kala kulmayaan dagaalo iyo sidoo kale cadaadis aad u xoogan oo kaga imaanaya dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada militariga Soomaaliya iyadoona gobolada shabeellooyinka halkaasi muddooyinkii la soo dhaafay ay uga socdeen dagaalo iyo sidoo kale halkaasi lagu gaarsiiyay jab culus